السلام عليكم halkani waa Duris Media subscribe hadii aadan hore u dhihin kusoo dhab gabar dalka marekanka u dhalatay oo islaantay waxaana ku dhacay cudurka kansarka gabar u dhalatay dalkaasi marekanka oo ku nool dalka Suuriya waxay ku qanacday islaamka wayna qaadatay diinta islaamka muddo kadib waxa ku dhacay xanuunka kansarka oo ku faafay jirkeeda dhammaan baaritaankii lagu sameeyayna waxa soo baxday inaysan rajo ku lahayn nolosha dhawaanna ay dhiban doonto waxa ogaaday qoyskeedii oo ku yiri waxa ku dhacay carar rabbi waayo diintaadii ayaa ka baxday islaamna waad qaadatay muddo kadibna qoyskeedii ayaa ugu yeeray Mareykanka si ay u marto baaritaan ka fiican kan Suuriya waxaase soo baxday mid la mid ah kii Suuriya waxaana loo sheegay inay dhawaan dhiman doonto ehelkeedii waxay tageen kaniisadda oo ay ku dhaxeen dadkii qofkii diinta Kiristaanka ka baxa sida ayaa u dambeyn doonta ee ogaada ku cibraqaata way walwashay gabadhii waxayna go'aansatay inay ku laabato Suuriya ayna ku adkaysato diinteeda islaamka halkaana mawdka ku sugto habeen saq dhexe ayay fakartay markaasay tiri haddii aan sidaan ku dhinto dadka islaamka soo galaya way ka yaacayaan waxayna moodayaan run waa inaan rabbi baryaa si aanay taasi u rumoobin way weysaysatay saq dhexe wayna tukatay ayadoo sujuudsanna waxay tiri ilaahayow kama baqaayo la kulankaaga iyo geerida haddaan sidaan ku dhinto dadka diinta sooma galayaan ha igu dilin sidaan diintaadana u gargaar subaxii markii la gaaray ayay dareemi weysay wax xanuuna baaritaankiina waxba waa laga waayey dhakhtarkiina wuxuu yidhi waxba ma qabtid way sujuuday gabadhii waxayna tidhi ilaahay marka uu shay doono wuxuu dhahaa noqo wuuna noqdaa siduu rabo subxaan allah halkaasay ku quusteen gaaladii lahayd cara alle kugu dhacday bal dheh adna oo soo qor Allahu akbar siina sheergaray walaalaha muslimiinta si ay in badan ku cibro qaataan alla awoodiisa subscribe kanaalka wassalaamu calaykum